madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo wafdi oo hogaaminaya oo wasiiro kamid yihiin iyo marwada koowaad ee dalka ayaa maanta waxa si diiran loogu soo dhaweeyay duleedka magaalada Dila ee gobolka Nowdal waxaana duleedka magaalada Dila kaga hortagay dadweynaha aad u fara badan kuwaasoo watay calanka Soomaaliland iyo sawirka madaxweynaha iyagoo muujinaya farxad ku aadan imaashiyaha gobolkan Nowdal ee madaxweynaha Soomaaliland madaxweynaha markii uu soo gaaray magaalada Dila ee gobolka Nowdal waxa uu kulan kula yeeshay bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuuna ka xog wareystay baahiyaha ka taagan degmadaasi Dila wuxuuna kulankan kula hadlay dadweynaha isagoo ka sheekeeyay siyaasadda xukuumaddiisa ee ku aadan wax u qabadka bulshada gaar ahaan dadka ku dhaqan gobolka Nowdal waxaana hadaladiisa kamid ahaa dowladahan inaan wixii dalka iyo dadka xaqaraya wixii gobolka xaqaraya hadda wadooyinkiisa tahay horgiisa kala tahay wax qabashadiisa iyo dhinac walba ay tahay inaan wax ka qabanno oo aynu meel ka soo warjeysano oo aynu gacmaha isqabsano oo aynu dalkeena horumarintiisa iyo midayntiisa iyo isku-xidhkiisa aynu ka washaqeyno sidoo kale markii uu kulankan dhamaaday madaxweynaha wuxuu la kulmay guddida sare ee hay'adda dhismaha jidadka goboladan Nowdal iyo Salal ee Azarda magaceeda loo soo gaabiyo wuxuuna ka dhageystay waxqabadkooda isagoo xariga ka jaray wado 6 kiiloomitir ah una dhaxaysa magaalooyinka Boorama iyo Dila oo lacagta ku baxday ay bixisay xukuumadda Soomaaliland isla markaana ay dhisaysay hay'adda dhismaha jidadka goboladan ee Azarda waxa kale oo ugu shaareeyay qalabka maanta halka laga shaqeeyay kullu waxa iska leh Azarda iska leh waa qalab u leeyahay naashnalalka muxuu Soomaaliland dadkii lacagta ka wareeyay ku iibinay maanta kharashka naga baxay oo ku yaraanaya intii hor aad uga yaraanaya ilaahay ma hadiya ka gaadho hawlaha guud SRA iyo wasiir Maxamed Samaal madaxweynaha wafdigiisa waxaa loo soo galbiyay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Nowdal waxaana hareeraha wadooyinka tubnaa dadweyne aad u fara badan kuwaasoo ku faraxsanaa imaashiyaha Boorama ee madaxweynaha Soomaaliland wuxuuna madaxweynaha Boorama markii uu soo gaaray dhagax dhigay dhismaha guriga martida waxaana warbixin ka siiyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliland mudane Cali Xaamud Jibriil waxaana hadaladiisa kamid ahaa gobolka Nowdal caasimaddiisa Boorama aanay lahayn state house madaxda qaranku ama mas'uuliyiintu ama madaxweynuhu ku soo dago shaqada madaxweyne aad baan ku mahadnaqaynaa aniga shacbiga ku hadlaya afka xukuumadda ku hadlay madaxweynaha ku soo dhaweynaya dadkimada taab aad iyo aad xagalta waa sharaf weyn ay ku dhigeen halka laga dhiso waa magaalo istaasha Boorama aad bay u baahan tahay in laga dhiso state house laga dhiso madaxda qaranka iyo martiinooy ay ku soo tagaan hastawaatee madaxweynaha Soomaaliland waxa uu maalmaha soo socda ku sugnaan doona Boorama isagoo ka fulin doona isla markaana dhagax dhigi doona mashaariic fara badan oo horumarineed oo ka hirgeli doona magaaladan Boorama xarunta gobolka Nowdal wuxuuna kulamo la yeelan doona sida la sheegay bulshada qaybaheeda kala duwan isagoo ka wareysan doona xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo baahiyaha jira عبد الفتاح أحمد هاد وناق نيوز مقالة بورما.